إن شاء الله تعالى maanta ay tahay taariikhdu tahay bishii labaad oo 8 waxaan dhex taaganahay markiiskii dugsiga markazul qur'aan li tahfiid al qur'aan al kariim dhulkan dhex taaganahay waa dhulkii la gaday ee ay gadeen ardaydii dugsiga iyo wixii muslimiin kale la kaashan kareen dhulkii aad ogeydeen baahidii aan u gadanay ilaa maalinka way noo taalay duruufo fara badan oo soo maray adduunka oo ka jira darteed baa dib dhaca keenay oo wada dareemayno abaarihii dhacay inta Soomaali degto dhan ka dhacay baa waxay keeneen in la kala mashquulay oo dadaalkii faraha badnaa ee sameyseen ee waliba muddada yar ee aadka u kooban aad ku diyaariseen lacagtii dugsiga ku gadeen in waqtigaasi nagu gaadho waxaa keenay duruufta aan dareemayno oo aan ka garaabayno oo dhammaan in wada haysata ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka hore bismaa'il husna wa sifaatil ula inuu abaarta dhibaatadaas inaga bixiyo meel kasto la joogaba inta kadib maanta meesha waxaan u taaganahay dhulkii isaga ahaa oo aan u baahnayn in fara badan wax inoo dhisa amba inaga caawiya ayaa waxaa jira nin walaalkeena oo aad ugu ducaynayno oo leenahay miisaankiisa xasanaadka Allah ugu kabo aakhira ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku xifdiyo isaga iyo ubadkiisa iyo reerkiisaba adduunyo ka badan oo baraka badan Allah soo geliyo ayaa wuxuu inoo ballan qaaday inuu inoo dhiso dugsigii qolal kamida ilaa 5 qol meelaha taqriiban saadareemisaan 5 qol waxa la jeexayaa oo way socdaan wixii hadda bari loo bilaabana waxa iman doona insha Allah dhagixii iyo wixii lagu dhisi lahaa la dejin doona wixii ka dambeeyana marka dhismuhu ka insha Allah mar labaad baan soo sawiri doona oo idin soo gelin doona hadii Ilaahay yiraahdo inta maanta muhiimadu ay tahay waxay tahay meeshaan soo nimid dadkan dhinacyahayga taagan gudidii dugsiga intii igala joogtay weeye iyo duqay kale oo maartay dugsiga isaguna duqay ka intii igala joogtay weeye intiina kale insha Allah ta'ala wuu soo gaari doona muuqaalka iyo maqalkaas waxaan insha Allah idin sheegay rabnaa baahida markasku u baahan yahay aad bay u ballaaran tahay ninka walaalkeena intuu inoo qabtay taqriiban waxa la dhihi karaa baahideena 3 meelood markii loo dhigo meel kamid ninka walaalkeena inoo qabtay intii kale ayaan u baahanahay inta kale waxyaabo fara badan ka kooban tahay deyrkii baa harsan saa dareemaysan dugsiga iyo albaabiya ganjeeladii waxa harsan macna hool weyn oo loogu tala galay in ardada markii ama muhaadaro la dhigayo ama kitaabo la akhrinayo ama muhaadaro caami ba ay jirto meeshii la isugu iman lahaa waxay noo harsan macnaha biyo gelintii baraagihii musqulihii joohahii waxyaabo fara badan oo kale ayaa noo harsan oo xagga dhismaha dugsiga ku saabsan waxa inta ka daran oo aniga xagga Sheekh Ismaaciil ahaan ama macallinkii dugsiga markaan ahay baahida ugu badan ee dareemaya kamida markasku wuxuu u baahan yahay gaari saad ogtihiin meesha gaar sadaan ku noolahay markaska aan gaari lahayn waa iska dugsi xaafadeedu ma ku soo ururaya laanahu magaaladii way kala fogaatay meel fara badan waa la kala degay maraakiis fara badan oo dugsi oo la gawaarina waa laga furay taasi marka waxay keentay anaga markiiska wuxuu iska noqday markaas xaafad ku yaala oo inta lugta ku soo gaari karta kaliya toona iman karto bal intii dhiganaysay haduu qofka ama kire guri ugu jiray uu ka guuro maanta oo meel kale u yar fogaado ama duruuf kale dan kale ku timaado xaafadan kale u wareego adna aadan awood u lahayn ardadii waxaad ku soo qaado amba aad ku celiso sida umay kaaga tagayaan marka dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhulkan giditaankiisii oo ardadii dugsiga iyo dadkii kale muxsiniinta ahaa ee iyagu ama la xiriireen ee qaybta ku lahaa waxaan ka codsanaynaa markiiskiisu ku dhameystirmi lahaa inaan u dhaqaaqno oo ruux kasta oo inaga mid oo dadka kamidii yaani waqafka khayriga ee kitaabka Ilaahay insha Allah ta'ala ila qiyaam saaca in lagu dhiga qorshuhanagu uu yahay in qof walba wixii uu ku soo darsan karo ee uu kaga soo qayb qaadan karo inuu kaga soo qayb qaato arintu way bilaabatay hadda waad aragtaan maanta wixii ka dambeeyana dhismihii baa bilaamaya hadii Ilaahay yiraahdo markuu bilaamana san idin ballan qaadnay insha Allah markuu darbigu soo kaco ee banaanka hor ugu soo baxo maalimaana darasano kale intaan idin ku soo duubno aan idin soo gelinaynaa intan waxaan ugu tala galay inaan ogeysiino ardadii dugsiga iyo dadkii kale muxsiniinta ahaa ay waagi wax ka soo ururiyeen iyagu la xiriireen inay maaragtay ogeysiiyaan dugsigii dhismihiisii iyo hawshiisii way bilaabatay ruux walba wixii aad kaga soo qayb qaadan karto ee tabartaada iyo cid kasto kale oo wax ka soo qalqaalin karto arintii wata way bilaabatay waa mowduuc inoo furmay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh